noloshu waa struggle, noloshu waa halganka nololeed ha jilcin, nolosha weligaa macmacaan ha ka raadiniyo wax jajabaniyo wax laysla helo waxaa ha ka dayday. nolosha waxaad ku tala gashaa inaad si fiican u waajahdo, markaasaad guusha ka gaadhaysa. inaad wax akridid, wakti yar seexatid, wakti badan soo jeedid, soo jeed bilaa macna aanu noqona, soo jeed aad ka faa'iidaysanayso noqdo, aakhiradaad iyo adduunkaaga miduun inaad dhisaysid, labadaba inaad wada dhisto. ha noqonin jilicsan oo dee maxaan ugu sameeya wax kale soo heli maayo inuu ooyaya ha noqonin. nolosha oohin lagagama hortago, nolosha adkaysaa lagaga hortaga. soomaalidu waxay dhaha waad baahantahay looma bahala cuno. mataqaanin mahmaahda haddaad tidhahdo waad baahantahay waraabo qalo ama dacwo qalo doofaar qalo saa lama yeelo. waad baahantahay bahalka looma cuno. ee intaad adkaysan kartaa ma isu dhowri kartaa la isu dhowraa. caqabaadka idinku hor yimaadana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeya yaa yaxya khudi lkitaaba biquwa. nebi yaxyow kitaabka waxaad qaadataa baa ilaahay leeyay jiddiya, si adag. qofka dhallinyaradii waa waktigu ugu xooga badnaa ee yuu noqonin waktigaa ugu jilicsanaydeen. oo waktigaad ugu xooga badnaydeen ee ha u muuqanina waktigaa ugu jilicsanaydeen. waa waktigaa ugu faa'iidada badnaydeen, ummadiinna, dadkiinna, dalkiinna, wax walba waktigaa ugu faa'iidada badnaydeen yuu idinka dayacmin waktigaasi. idan firaaqadu, dhallinyaronimada firaaqadeedu waa waxaan dib loo soo helaynin. waa waxay gabayadu iyo udabadu intay qayliyaan layta shabaaba yacuudu yowman faakbirhu bima facala almushiibu ay ku gabyaan. waryaa dhallinyaronimadii maalinuu soo celiya da-i waxa i badayaan uga sheekeeya buu leeyahy. waxaan idin leeyahay markaa firaaqa waktiga ka faa'iideeya. qofka dhallinyarada tajribadiisa waa yarta, waayo aragnimada nolosha uu leeyahy sanad kastoo jirto waxba kugu kordhaya. idan waayo aragnimada nolosha uu leeyahy way yartay. xalku waxa weeyaan inaad programid noqoto. waktiga xisaabso oo program u samee oo ha noqdo raasumaalka. maanta haddaad waxoogaa lacag intaad soo hesho ay suuqa kaaga soo lunto ka waran, madaxaad maanta o dhan isqaban lahay. aniyow 5,000 shilin oo 5,000 karoon aan maanta bangiga kala soo baxay ayuu maanta markaa marayay shandadu ma isku rido jeebkaan la waay. waad murugaysantay. waxaan taa uga jeedaa waktiga inaad dareentaan. weliba waktigaa dhallinyarada ti waa waktigaad wax weyn qaban karto. markaad 50 jir soo gaadho waktigaaga waxaad ka dhalin kartaa uu iska yaryi. waktigaaga keligaa ma lihidoo dad baa kula leh, awow baad noqonaysaa, caruur baa kula leh oo kuwaad awow ahayd baa kula leh oo reero oo xidhiidh oo dadan oo kumaankum qof baa kula wadaaga saacadahan yaraad haysa. laakiin markaad dhallinyaro wata cidina kulama laha, adaa iska wada wata waktigaaga. caruurna kaama daba ooyeyso, cid kalena kuguma mashquul ahaa, adaa waktigaaga leh, adigay tahay inaad isticmaasho. qofku jadwal nololeed inuu leeyahay, wakti uu wax akriyo, wakti uu seexdo, wakti uu soo jeedo, wakti wax barto, wakti wax baadho. inaad noloshaadu jadwal leeday. inaad isku daydo hurdo intaad yarayn karta inaad yarayso. inaad isku daydo entertainment, waxa waktiga lagu lumiyo intaad yarayn karta inaad yarayso. inuu kaa noqdo un mar aad wixii kaloo dhan caajistay inaad ku soo yaro baraarugto un. yani haddaan imika maanta o dhan wax akriyo waxa laga yaabaa 3 saacadood markaan maraya inaan daalo. waxaan u baahnay nus saacaan iska yaro nasto, fadhiyo oo iska shaashaayo, saaxiibkay la sheekaysto oo warramo. laakiin nus saacani wuxuu isiinayaa inaan dib appetite ugu helo, waa appetizer. inaan dib ugu helo shahiya, yacni dib inaan u isticmaali karo haddana mar kale ama wax akhriska ama wax qabad kale. waxa weeyaan nicmadii ayaynu niqmo u aragnay. waa laba erayo af carabiya. nicma waa barwaaqo, waa shaygii lagu barwaaqaysanayey oo loo arkay inuu yahay dhib iyo kadeed. maxaan uga jeedaa mas'alat alfiraaq. firaaqa ma taqaanaa? jaaniska, waktiga. ninka dhallinyaraday waxay ahayd markuu wakti helo inuu ka faa'iidaysto, nimco ilaahay siiyey u arko inuu wakti isbeera oo aanu waxba ku qabanin inuu haysto inay nimco u aragto. laakiin haddii waktigu xanuun kugu noqdo ka waran, aad tidhaha iskuulkiina waa fasax, wax allaaliyo waxaa qabta habeenkaa caawaa garan maayo, discotiga ma qabanaa mise filimka qabanaa, xaggaynu waktiga kusoo dillaa. marka aan kubad iska daawano, tv-ga inoo shid, maantao dhan uu tv hoos galgasho unoo kolle kaa ka rog,
200 jannal kolle kaa ka rog meel wiil yari boodboodayo heesayo ama mid caag loo buufiyo kubad eryaya ama wuxuun inuu eego nicmadii uu haystay ayaa qofkii ula muuqatay dhib waktigii nicmu ahaa nicmo aad wax ku barato aad ku shaqaysato aad wax ku qabsato aad dad ku noqoto aad ku korto hadday iyadu dhib kugu noqoto ay noqoto dhibtii laga takhallusayey waarsaan u gallaa seexo diinaha isa saar kolba isa sii deg wuxuu rabaa inuu 20 saacadood hurdo wakti badan inuu hurdaa buu doonaya waayo waa fasax buu ku leeyahay wuxuu rabaa waktiga meeluu ku dilo inuu soo boodboodo meelaha tago ku dilo war waxaana aad dilaysaa waa cimrigaagii hadda cimrigii kuu tirsanaa imika haddii lagu idhaha naftaa lagaa qabto waxaad leeyahay ilaah waxa laygu daro socanka maaha ilaah waxa laygu daro markii lagugu darayna waxaad ku leedahay xaggaanu qabanaa markii lagugu daray iminka haddii la idhaha nafta halaydinka wada qabto wada argagixi lahayd qof oo anigu inugu filan noolaadayaan iska dhinto waa yaryihi hadii la idhaha nafta halaydinka qabto may baynu odhan lahayn ilaahay wuxuuna inoo saa'idiyo laakiin marka lagu saayidiyey ee in lagugu daray haddaad waxaad ku qabataba garan weydo oo intaad soo toostan oo aad tidhahda niyo waktigii baa batay maxaynu ku dilnaa inawada meelaha iska soo warwareegne kubad soo cayaar aan waxaan soo samayno entertainment iyo music iyo wax lagu dilo la raadiyo hiya almashkila dhibta waxbarashadu qofku markay ka hor timaado had iyo goor derbiga kalu ku dhacaa oo ah in ama xashiishada iibiyo ama suuqa iska galo ama dhulkaa warwareega ama waxaa marka la dhaha iskuulka maxaad u qabaa iskuul la dooni mayne way soo eriyeen macallimiinta akhlaaq xune haddaba hasha ku yara adkaata waxaan kala marsiiyo markay soo yara adkaatay iskuulkii iyo qaabkiisii ayuu reason kala samaysanayaa oo uu suuqa ku galo qofka si fiican intelligent kasta ahaw si kasta u maskax badnow haddaan waxaan si wanaagsan lagaaga dhaadhicin oo cid ku caawisa iyo cid kaloo taageerta aanad helin way ka hor imanaysaa dadkuna adkaysiga wuu kala leeyahy dadka intelligentka badan baana in badanoo ka mid ay adkaysan yartay markiiba way soo car hadda waa qof caqli badan laakiin markii hore ama iskuulkii hore aanu soo qaadanin ama meel dhexu ka soo yaro bilaabay ama afka ku yaro adkaaday ama isagaan si wanaagsan wax u soo diyaarin 2-3 subject markay ku soo adkaadaan waa kuwa ugu badanee xagga kale u booda maskaxdu waa angalka wax laga sawiro waa qaabka wax loo tusiyo maskaxdu waa cidda wax u sheegtay iyo feedbackeeda xataa waxa ra'yiga dhaaf isaga masale aaraa iyo ra'yi daaye waxa tangible la taabtaa lagugu qaldi karaa ma u malaynaysaa haddaan idin tusaya waraaq yar duuduuba sooma fadhidaa waraaqa ma haysataan waraaq yar sidaa waxaad samaysaa waraaq yar waraaq sidaa dheh sidaa intaad usto sacabkaaga saar qofka kugu xigee saaxiibkaaya labadiisaa farood qabo isweydaari sidaa dheh saaxiibkaa sii jeesa dheh isagoo sii jeeda labadaa farood oo isweydaarsan waraaqdaa saaroo caynkaa dheh waa imisa dheh waa labuu ku odhanaya ku day waa halkaa waraaqa halkaa waraaqe qura aan hayo soo waraaqda qura maaha intaad halkaa saarto oad labadiisaa farood sidaa isu weydaariso qura sii jeesa dhoo dabeetana sidaa u saar waa imisa waraaqood dheh waa imisa dheh waa labu markuu ugu yariyo ku odhanaya waayo maskaxda markay neerfuhu caynkan yahay u sidaa ugu sheego waa sidii saxa ahayd waa dhankay ka taqaanay buu odhanaya haddii laysu weydaariyo laba aan isku mar wax taaban jirin baa isku mar wax taabanaya dabeetana waa labay sheegayaan waayo labadaasi labadaa dhan isku mar wax ma taabtaan najaralisaa ilaahay ugu talagalay si aan bay yihiinoo isku mar ma wax wada taaban karaan laba aan isku mar wax taaban baad isku mar wax taabsiisay dabeetana waxaad odhanaysaa waa laba idan qadaayaadka fikrigaahi way kasii khatarsan yihiin kuwan kani waa material baan ku tusay qadaayaadka fikrigii waa angalka lagaa tuso waa fishanka angalka wax lagaa tuso baad wax ka arki kartaa qofku markuu dhalinyaro yahay jidhkiisii baa soo dhismaya markuu soo dhismo baahiyihiisaa soo badanaya meel waloo cudwi meel waloo jidhkiisa ka midiba way koraysaa
koritaankaasi wuxuu ku gaadhayaa inuu qaan gaadho, ninku inuu ninnimo dareemo, inantuna inay inannimo dareento. wuu sii korayaa wuxuu ku gaadhayaa ninku inuu bislaado, inantuna inay bislaato. wuu sii korayaa wuxuu gaadhayaa qofku xad marka dambe uu dib u soo noqdo oo hoos u soo noqdo. dhallinyaronimadu markaa waa xadkii la koraya bislaanshihiisa xaggiisa loo sii wada socday. nin dhallinyaro saxaabiyaa nebiga u yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anigu adkaysan kari waaye, marka anigu waxaan doonayaa in zinada lay ogolaado buu yidhi. idigu maxaa odhan lahayd nebi maxamed oo meel fadhiya intuu nin dhallinyaro isaga yimaado oo saxaabadii la fadhido oo dadkii la fadhiyaan ayuu intuu isaga yimi uu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anigu adkaysan kari waaye, aniga xadhig ha laga furo, ha la ogolaado zinada. saxaabadii agta joogtaa ku qaylisay, ha ku qaylinina buu yidhi. soo dhawow buu ku yidhi, udnu ii soo dhawow buu ku yidhi nebigu. wuu soo dhowaaday. wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo su-aaluu weydiiyey, su-aalo tilmaamaya qofku inuu dareemo mas-uuliyadi inay bulshada iyo mujtamaca ka saarantay. wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo hooyadaa ma la jeclaan lahayd? in hooyadaa laga zinaysto oo nin kale ka zinaysto ma jeclaan lahayd? may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. wuxuu yidhi dumar kalena qaar bay hooyooyin u yihin, hooyana la jecla. walaashaa ma la jeclaan lahayd buu ku yidhi in ninka haysto ka zinaysto? may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo taa ma ogoli. wuxuu ku yidhi dumar kalena rag bay walaalo u yihin oo ma jecla. inantaad adigu dhashay, gabadhaada aad adigu dhashay ma jeclaan lahayd buu nebigu yidhi in laga zinaysto? may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo taana cidna uma ogoli. dee gabdhaha kalena rag baa dhalay buu nebigu yidhi oo iyana ma jecla in laga zinaysto. habar yartaa buu ku yidhi ma rabtaa in laga zinaysto? eedada ma rabtaa in laga sinaysto? wixii dumar ku weeraa ee uu ilaashanaya ee uu ceebta la rabin. dumar baa jira aanaad ceebta la rabin, walaasha, hooyada, inantaad dhashay, habaryarta, eedada, dumarkaa kugu weegaarane caarkaaga ah ceebtoodu iyadoo lagu sarsaray ka daran. mar in ceeb laga soo sheego. saa daraaddeed nebigu wuxuu leeyahy kuwa in qola kaxaysato oo rag iska fuulo ma jecesha? may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. dee haddaba kuwaasina dad bay u yihiin, intaa adiga ay kuu yihiin bay rag kale u yihiine nabadgeli buu ku yidhi. nebigu intuu soo dhaweeyo laabta gacanta ka saaray ayuu dabeetana u duceeyey oo ku yidhi allahuma xasin farja, ilaahay ow kan farjigiisa u dhow oo dembigiisa dhaaf. waxaa la yidhi gabar dambeba sidaa uma egin iska dhaaf. maxaan uga jeedaa? kow marka hore waxaa ka fakartaan inanka soomaaliyeed, walaashan soomaaliyeed aad xumaynayso walaashaa un ka soo qaad, tii ku dhaatay hooyadaa dhashay. idan mas-uuliyad baad dareemaysaa inay mujtamaca kaa saarantay. inanta soomaaliyeed inanka aan xumaynayso inay mas-uuliyad dareento mujtamaca ka saaran. taasi waxay keenaysaa qofku mas-uuliyadda uu dareemayo inuu ilaaliyo. shahwatu nafs marka hore waa mushkilad mashaakilka bini aadamka ka mid a. waa mushkilada ilaahay ku talagalay inuu inagu itixaamo. haddii aan shahwadba laynagu abuuri lahayn soo wada malaa'igun iskamayna noqoneen. de malaa'igtaan waxba doonini, halkeeda iska fadhida waa iska tasbiixsataa. haddaanad waxbaba dareemaynin dee malag baad noqon lahayd, iska tasbiixsado weligiisa halkaa ka haya. laakiin akhlaaqiyaadku waxay ku yimaadaan baa la yidhaahdaa qofkani wuu akhlaaq fiican yahy iyo wuu akhlaaq xun yahy waxa u dhaxaysa in la itixaamo, inuu galo mantiqo imtixaana oo markaa sidii u adeegsaday. waxay yidhaahdaan qofka imtixaankiisu 3 shayba wuu baahay. xorriyad buu u baahan yahy inuu haysto qofku, qudru u baahan yahay awood iyo istitaaca, mucaanaa buu u baahan yahy bay yidhahdeen waxani wax caqabo laga gudbi kara inay tahay inuu dareemi karo. intaa markay dhacdo ama wuu gudbi ama wuu dhici oo wuu hooban. inaad gudubtaa ma fududa. inaad gudubtaa ashyaa badan bay u baahantahy. ko inaad muslim dhaba noqotaa bay u baahantahy. 2 inaad ilaahay ku xidhantaa bay u baahantahy oo aad ilaahay xasuusatid wax kastaba, oo xumahan iyo nafti iyo shayطaan markay kuu sheekeeyaan alle aada xasuusatid, oo cadaabkii kuu muuqdo, oo jannada la waayayaa intay leegtay aad tasawurtid, oo aakhira kuu muuqato,
oo aan doonistan yare naftoo quri kuu muuqaniyo macmacaanka inay kaa doonaysa. kaasi waa shay muhima oo qofka in lagu koriyaa u baahantay. wuxuu u baahan yahay in qofka xishoodka lagu soo koriyo, inantu inay xishoodnimada inannimo ku korto. haddaanay xishood ku soo korin afka wax walba waa iskaga ballaadhinaysaa, dabeetana hungurigu waa bilaabmaya. inanku haddaanu xishood ku soo korin sheekada koowaad baaba laisku fahmaya, laakiin haddii xishood lagu soo koro waxay noqonaysaa muddo in wax dahaadhnaadaan ama daboolnaadaan. yacni waxaa kala jira maruu qofku dareenkiisa xukumo iyo mar xataa dareenku kaa xoog badan karo. haddii matalan marka hore aad soo badheedho tidhaahdo filmaanta xunxumaan daawanaya, anigu iska dhagaxbaan oo waxba ma dareemo waa iska daawadaa una dhuhun baan ku eegaagaa haddaad tidhaahdo miyay runta? run maaha. film xun baan shidaya waa iska eegeegaynaa un, laakiin waxba dareemi maayo, run maaha. idan qofku meesha xun inuu ka fogaadaabaa marka hore habboon. intuu ka dheeraan karo inuu ka dheeraado, bii'a nadiifa inuu tago, mujtamac nadiifa inuu la dhaqmo, noloshiisa inta dad wanaagsan inuu la qaato. inanta muslimadee hablo kaloo muslimadoo wanaagsan inay la dhaqanto, inanka muslimkii inamo kaloo muslimiinoo wanaagsan inuu la dhaqmo, inuu masaajidka ku xidhmo, inuu meelaha cibaadada ku xidhmo, in dadka khayrka ugu yeedhayo ku xidhmo, si uu uga fogaado ciddan sharka ugu yeedhaysa, inuu naftiisa kontaroolo ilaaliyo. ilaahayna wuxuu leeyahy waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih. waxa aan tilmaamaya waxa weeyaan dhib badan baa jirta, dhibtaana idinkaa iga aqoon badan oo dee idinkaa dareemayaba. waa dhib xal leh. cid idin ma laha bini aadam ma tihidine waxaa laydin leeyahay dhibtiina janno ku raadiya. jannadu tacab bay u baahan tahay. nebigu wuxuu yihi ilaahay jannadiisu waa qaali. waxa qaaliga ana dee si fudud la yskagama helo. shaqo iyo hawl bay u baahan tahay. waxa fududay adkaysi buu u baahan yahay, hawl buu u baahan yahay, shaquu u baahan yahay. shaqadaa waxaa ka mid ah inaad dhowrsanaatid oo inankuna inannimadiisa dhowro, inantuna inannimadeeda dhowrto, guur xalaale mooyaane. waxaan leenahay waxaa ka mid ah in guurka la fudaydiyo oo inan iyo inan ciddii guursan kartaa ay guursadaan, si xalaal ay u guursadaan. guurku ceeb maaha. gabadh weyn iyo gabadh yar, inan weyn iyo inan yar, mid la guursada toona ceeb maaha. bini aadam inuu isu baahan yahay waa la wada ogsoon yahay, ama ha yaraado ama ha weynaado. inuu isu wada baahan yahay waa la ogsoon yahay. dhaqanka aynu halkan ka barannay runtii dhaqan qurux badan maaha. dhaqanka odhanaya laba isku da ee isguursata waa dhaqan waalan. laba un isku da, war labadii la isu calfaa isguursata, labadii kala heshaa isguursata, labadii nolol wadaagi kartaa isguursata. age wise qasab maaha. sida awgeed guurku inuu fududaado, nin weyn iyo nin yar, inan weyn iyo inan yar, miduu doonaba hadee guurku inuu fududaado. qof kasta oo guursan karaa inuu guursadaa waa maطlab sharciya, si uu naftiisana u dhowro, mujtamacana ilmo xalaala ugu soo kordhiyo. sida awgeed buu nebigu wuxuu aada u ammaanay, ina rabbaka layacjab lishaabi laa sabwata lahu buu nebigu yidhi. ilaahay wuxuu la yaabaa buu nebigu yidhi ninka dhallinyarada ah ee aan sabw ahayn. sabwadu waa mayl ila alhawa, aan xaggaa dumarka aadka ugu jiljilecsanayn, xaggaa eegin. sabwa waa ficlu mara. qofka dhallinyarada ee aan sabwa facla quraba mar qura xagga dumarka u janjeedhaynin ee dhowrsoon. sida awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkiisii saxiixa wuxuu ku tilmaamayey 7 maalinta qiyaame carshu raxmaanka hadhsada. maalinta qiyaamaha ee dadku wada qaawanyey, ee cadceedu dhowdahay, ee meeshu kulushahay, ee qof walba dhididkiisu hafiyey, ee naftu dadka isugu wada timaado, ee qof waliba yaa nafsi uu taagan yahay, ayaa sariirta boqortooyada ee alle subxaanaه wa tacaala carshigaa hadhkiisa dad gaara baa la yidhahdaa idinku hooskaa hadhsada. qiyaamaha dad gaara baa meeshaa la hadhsiiya. dadkaa gaarkaa waxaa ka mid a imaam, madaxweyne, ummadda u cadaalad sameeyey. qofka labaad wuxuu nebigu ka dhigay qof dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku koray oo yacni xumaha ka dheeraaday.
qofka saddexaad wuxuu ka dhigay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qof mu'minoo qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay yacni salaadiba salaadbiso aan salaadba ka tegin qofka afraadba wuxuu nebigu ku tilmaamay inuu yahay laba qof oo ilaahay dartiisu jeclaaday aan wax kale isu keenine waxa isu keenay uu yahay kalgacal ilaahay dartii ay isku xidhiidhinayaan ilaahay dartiina uu kala taga ka ku xiga wuxuu nebigu ka dhigay warajulu dacathu imra'atun daatu mansibin wa jamaal nimay u yeedhay gabadh reer la yaqaan ka dhalatay quruxna leh ama mansab sare haysata wasiir iyo madaxweyne yacni gabadh meel sare joogta quruxna u dhan tahay yacni dumarka maxaynu u naqaanaa loogu jacayl badan yihi gabadh reer ladan oo la garanayo macruufa ka dhalatay khilqadeed iyo abuurkeeduna aada u qurux badan yahay intaa waxa raacda dee diinteeduna wanaagsan tahay laakiin dee halkan xumaan laga warramayaaye diintu meesha ma taallo markaa gabadh qurux iyo reerba ka dhalatay oo tidhi war balayna keen caawa wada casho tagne oo uu leeyahay naa ilaahay baan ka baqaya iga tagordo ilaahay uu ka baqayo uu diidan yahay qofkaasi ama inan wiil dee reer ka dhashay oo qurux badan uu yidhi caawa reerka iskaga kaale inaa ku casho geynayo tidhi waar orod gurigiina qabo kaayagaanu ka cashaynaynaay idan inantaa diiday inay ninkaasi raacdo ama inankaasi diiday inuu ninkaasi raaca waxay ka mid yihiin toddobada maalinta qiyaame carshiga alle hadhsada waa mansilo aada u weyn ka toddobaad nebigu ka dhigayey qof sadaqo baxsaday kii lixaad oo gacantiisa midig waxay bixinayso ta bidixaanay ogaanin yacni waa nimaan lacagta u aaba yeelin xumaha uguma aaba yeelayo waxaan ugu aaba yeelaynin wanaagga kan sii kan wax ka bixi kan wax u dir kan sadaqaadkiisa u baxsanaya qofka toddobaadna wuxuu nebigu ka tilmaamay qof intuu ilaahay dartiisu taagay ooyey cibaado u alla caabudayo subxaana wa tacaala midna wada ogsoonaada inan iyo inanba qof kastoo xumaaday in allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay dembi dhammaantii wuu dhaafaa qofku hadduu tooso inanku si kastoo ay u xumaatay inanku si kastoo u xumaaday hadduu soo noqdo ilaahay u toobad keeno ilaahay dembiga wuu dhaafaa qofka mu'minkee toobad dhaba la yimaada waa ka yowmi waladatu ummu mushkiladda in badan oo dhalinyarada ka mid a ama soomaalida ka mid a haystaa waxa weeyaan waxay moodayaan qofku hadduu xumaado inaanu sooba noqon karin in lasii fogeeyo heblaayo baasha iibisaaye dabadda usii tuura ama hebeel in lasii fogeeyo waxaa leeyayaan lasii fogeynina dadkaas shaytaan iyo in loogu gargaarina ha laga soo celiyo hadday toobad keenaan aada u wanaagsanaadaanna waa dad fiican markaa saxaabada nebiga maqlayseen ee waaweynaa dee markii hore gaalo jaahiliin oo wax walba samaysa bay ahaayeen gaalay ahaayeen gaalnimo dembi ka weyn baa jira gaalay ahaayeen gaalna wax walba wa isaga banaanaa laakiin markay islaameen bay waxaan ka fuqeen dadka muslimiinta ahna yaan laga quusanin waxaa la yidhahdaa fudayl ibnu ciyaad ma taqaana wanin taabiciintii waaweynaa ka mid ah culamada muslimiinta laga dambeeyay waaweyn buu ku jira waa raggii cibaadada u go-ay buu ka mid ahaa iyo cilmiga xaramkuu deganaan jiray marka fudayl ibnu ciyaad culamaai siyar waxay soo wariyeen waagii hore qaaticu ariiq buu ahaa nin buu ahaan jiray khatara oo jidgooyaa oo dadka nafta isugu keena wuxuu yidhi habeen buu is yidhi meel ka dhac dabeetana wuxuu maqlay qof tukanaya habeen oo salaatu leyl u taagan oo qur-aan akhrinayo le alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wamaa nazla min alxaq aayaddii uba qalbigiisa ku dhacday majaariyaddaa yarna waktigaasay ilaahay u taagantoo leedahay alam ya'ni liladiina aamanuu miyaanay weli gaadhin dadka mu'miniinta ahay in qalbigoodu uu khushuuco ilaahay dikrigiisa iyo xaqa waa la soo dejiyey ma waktigaasay aayadda kugu akhriyaysa adna waa dhacaysaa wuu iskaga soo noqday meeshii uu dhacayay oo wuxuu yidhi iska toobadkeeno meel kharaabadu iska galay kharaabadii isagoo ku jira ayuu qolo maqlay wada hadlay soo socoto oo leh ninbaa wuxuu leey waryaadhe
ومشان إنه مرينا ولا هو ماشي فضيل كشري شري جار كذي ورعاوة بدبادي ما ينين الله بينني ورقدوا ميلها أنا خرابة ده قال أبوي يدي خرابة ده هران قال خرابة ده بيسوق قال هو ماشي فضيل كشري ورياه ما يسوي دي يقول ورما مسلم كإله هي وقت قال قورينا يانا ما بقاها يقدر كل يانا ماشى تنا ماشى بس كجتك فضيل ما بتسوق عن صدق ماشي سكجي ما ماكوس كجي ميودجي ده بتنا علم وبرتاي والعلماء دي جوا وين المسلمين اللي جدا بيجيبوا مركز دنبها فضيل بن عياض واللي برجع عبادة اللي قلته ما بوها فحنا قلت هذا قاطع طريق قفك السجار نقضي أي مسلم نقا كرهته بدك وحقول أنا دلله وحويان دليرو أنت ندوسنا الله يدين دوا آمين أنت دفتها ستنا إلهي دفتها كسوسا وريتها مشكلة كل عضي إن نيا ينبى متك الدوران النقضاني وأدبكنيو إن رحم ماضي كذا بتجنا كسوسا كل يجي نشكو إنه كسر كرو مليوبا حشيشة دام مليوبا إذا كوا حسكو ضيدان إن مليوبا كسو تشيدان وحلاقي يا بعض بدني إن يقلين ما أنت سلفت أي درسين لكن عد قاعدته كتشيد مش بإلهي إن أنت هنا سلاد حاجات ونقط غير كإنه حقوقك أنا دنا حماتي تاعي إنك سلاد حاجات دي بتجي دوتا قفل ما يبغى لغاتا لكن هدي دي بالله سوق بتقول سود ويجو وطريقة صواب قاعد دي بالله تصير وبشر ويحجاج كره تسوي قطع مركب هريدة كاسي ينلقوا إلا بالماشى إلى هنا وحكبر يا عز وجل إنه ذكر نفتك قاضي حق إنه إلهي سبحانه وتعالى دبوا سعريه مسلمين كتاب كودي السنة نبي الراعين الله كذبه إذن كيان نجنين الله ينصبه ونفتين إلى عليه